السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم كتاب يا قراء حي runtii xaaladda guud ee deegaanada khaatimo haddaan si toos uga warramo laba maalmood ka hor ayaa markii shaqaaqo culus ka dhacday deegaankaasi kadib markii dad reer baadiya ama laba ciidan oo qaarna ka socdaan beesha qormudug qaarna ka socdaan beesha gobolka cayn ay isku dagaaleen deegaanka miyaadna hadowgani iyo kalshaale inta udhexaysa xaaladdu runtii hadda way degan tahay waxaana la isku uursanaya sidaan wararka dhabtaanu ku hayno waxaa jira mas-uuliyiin fara badan oo iyagu booqonaya deegaankaasi sida mas-uuliyiinta konsolka gudaha deegaanka si ay u bilaabaan waana ama xaaladda loo dejiyo waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in dadka deegaanka qoortugida ama beeshaysa laga dilay halka laba ruux oo kalena laga dhaawacay shaqaaqada kuu sheegay ay ka dhacday nolosha marka hadda xaaladdu way degan tahay runtiina waxaa la filayaa haddii aysan inkastoo xuman xaaladda u waanayaano lagu soo dhameeyo waxaa kaloo jira qoraa warar kaloo soo baxaya oo sheegaya in deegaankaas midagle amaanada deegaanka qormudug beesha u dhalatay ay ka dad aada u fara badan oo halkaasi ayin fara badan ay keeneen marka haddaan soo koobo hadalkayga xaaladdu aad bay u degan tahay waxaana lagu wada qabaa in waana lagu soo dhameeyo marba siday noqotana xaaladda insha allah lagu soo sakari hadda waxaa naloo sheegay in xabadi socoto oo dagaal ka socdo qorilugud hagoogane iyo kalshaale iyo megaagle bal taas see baa dadka uga shaki saari kartaa marka u dahay markii salaada jurnisko ilaa 12 dadkii baa rafayeenka guud ee golaha deegaanka mudane Salebaan Adan Cilmi Salebaan Dheer una tartamay jagada madaxtinimada Khaatimo ayaa ii shaaciyay inay dhacday xogaa isfaafeen sidoo kalena carabkiisa ku dhistay in ay beesha qormudug ay soo jirtaas fara badan ama xabadaha deegaanka midayle ama ciidamada isteedka hore ku jira gobolka Cayn dhashay halkaasina waxaa intii xabadda marka soo bilaabatay gaaray sidii ka sheegay gudoomiyaha konsolka golaha deegaanka mudane Carab Xasan Sabal marka dadka waxaan ka shaqeynaa ku baabin karnaa xabadu baa dhacday marka hadda xaaladdu aad bay degan tahay